السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركا يا المهدي المنتظر قول ما صبح دونا حقونا كصبح دونا أسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محاكا دحي حرير نوعية سيدا أقولنا بدون كان نحول بحليا دمات أدونك حتى نكون لنا حتى مالنا دمات دونا معناها عيدكو هردون تنملها وحسوار دون كلي ووجه الله سبحانه وتعالى مركا دون كان حتى نكون لنا دمات كيسا مرة معنا أيضا أصلا صبحين ننكي وناكسنا ولا سوائي ninkaas oo ah nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagu sheekay ninkaasna maanta waxa jecelahay inaan idin wadaag ninkaas uu yahay goorto soo bixi doono iyo ninkaasna muxuu yahay adduunka hadan ku noolahay ma dhamaad doono dhamaadkiisna ma la gaari doono ilaa uu ka soo baxo ninka wanaagsan magaciisa la hayo al-mahdi al-muntazir al-mahdi al-muntazir waa calaamad kamid ah calaamadii qiyaamaha al-mahdi al-muntazir waa calaamada ugu weyn calaamadii qiyaamaha taas waa midii uu noo sheegay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaalay markii fiicana ogaano sheekada المهدي المنتظر iyo goorto soo bixi doono iyo meesha ka soo bixi doono iyo calaamada lagu gara doono markuu soo baxo aakhir zamanka markii la gaaro adduunka waxa ku soo kordhi doono ku soo zaa'idi doono nin wanaagsan magaciisa la hayo mahdi al-muntazir ninkaas nolosha adduunka wax weyn ka bedeli doono adduunka ka dhigi doono adduunyo wanaagsan nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aakhir zamanka waxa soo bixi doono nin magaciisa oo magaciisa oo kale uu yahay magaca biisna oo magaca bihi oo kale uu yahay nin waxa soo bixi doono oo ani reerkayga ah kaasoo adduunka badali doono oo adduunka ka dhigi doono barwaaqo iyo rayn oo adduunka ku soo kordhi doono nabad iyo nolol aan horay adduunka u soo marin ninkaasoo marka hoggaan ka qabto oo adduunka noqon doono barwaaqo iyo nolol oo aanan weligeed aleed la arag kaasoo qaba doono hoggaanka iyo talada islaamka oo adduunkana ka dhigi doono barwaaqo ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas wuxuu ugu deeqi doonaa roobka waxa lagu leeyahay samada xataa kama hagara doonto dhibic oo biyo ah dhulkan wuxuu soo saari doonaa dhirtiisa beertan way bixi doontaa sidii lii jiray barwaaqa waay bariga beertu way noo baxday macnaha dhirtii iyo beerihii iyo barwaaqadii ayaa soo wada bixi doono ninkan ayaa adduunka ku soo kordhi doona cadaaladii sinaan wuxuu dagaalami doonaa dulmiga iyo fisqiga iyo fasahaada goorto soo bixi doona mahdi waa goormee mahdi wuxuu soo bixi doona marka adduunka ku bato ku ziyaado adduunka ay qabsadaan fisqiga iyo fasahaada iyo xumaanta iyo dulmiga iyo xadgudubka markuu soo baxan adduunka wuxuu ka dhigi doonaa sinaan iyo cadaalad iyo bashbashi barwaaqo kaasi marka waa al-mahdi marka maxay tahay waxyaabaha lagu garan doono al-mahdi iyo meesha ka soo bixi doono mahdi wuxuu soo bixi doonaa adduunka markuu ku soo bato ku soo kordho oo zaa'id noqoto xadgudub xadka ay dhaafto dulmiga iyo fasahaada iyo fisqiga marka adduunka oo noqdo meel aad u xun xumaatan xadka ka baxdo ayuu ilaahay soo diri doonaa nin wanaagsan oo ummadda wanaaga fari doono ummadana wanaaji doono oo ummadan wadadii wanaagsaneed ku soo cili doono wuxuu noqon doonaa ninkaas nin ummadda dhan wanaajiyo ummadda isku keen ummadda islaamka dhan ka dhigo hal ummad oo isku xiran oo ummadda dhan miday doono ninkaas oo noqon doono nin nolosha muslimiinta bedeli doono nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkaasi magaciisa waa magaciiga oo kale magaca biisna waa magaca bay oo kale ninkaas wuxuu yiri waa reerkayga waa familkayga macnaha ninkaas wuxuu yiri waa albaytkayga ninkaas wuxuu ka soo bixi doonaa oo lagu arki doonaa bartamaha magaalada Makka al-Mukarrama waxaana calaamad saari doonaan ummadda islaamka dhan waxaana lagu calaamad saari doonaa gudaha xaramka masaajidka dhexdiisa waxaana lagu calaamad saari doonaa inta u dhaxayso maqaam Ibrahim iyo Kacbada dhaxdooda ayaa lagu calaamad saari doonaa waxaa la calaamad saari doonaa asoo dhibsanayo diidayo dhib ay ku tahay in la calaamad saaro oo noqdo hogaamiyaha ummadda islaamka waxaanu ku bariyaan inuu hoggaanka u qabto oo noqdo taliyahooda ayagana ay diyaar u yihiin as-sam'u wa ta'a macnaha inay hoggaansanaadaan hoggaanka uu qabanaya wuxuu hoggaanka haynaya muddo gaarayso 7 ilaa 8 sano intaas hoggaanka hayn waxaanu noolaa doonaa bashbash barwaaqi cadaalad iyo sidnaan ummadda islaamka waxay noqon doontaa ummad qaab weyn leh wadamada xataa muslimiinta waxay noqon doonaa wadamo lama jarsan doono sida had maartay iyo wadamada reer galbeedka oo kale waxay noqon doonaa wadamada muslimiinta in wadamo oo loo soo haajiri doono marka al-mahdi sidoo eg yahay abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wuxuu yiri nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al-mahdi waa nin salaxyo leh oo nasan dheer ana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wuxuu yiri nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadii adduunka xataa ay ka harsan tahay hal maalin ilaahay maalintaas uu dheeray doonaa ilaa uu ka soo baxo mahdiga macnaha adduunka xataa haday ka dhiman tahay hal maalin maalintaas ma dhamaan doonto adduunka ma lagu kala tagi doono ilaa uu ka soo baxo al-mahdi wuxuu ka soo jeedaa reerka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waana caruurtii Faatuma waxaana ka soo jeedaa reer Xasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaa
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحيري المهدي من آل البيت يصلحه الله في ليلة. معناها المهدي والبيت كإله وحكوها جدونا هل ما الجذهد معناها هل ما الجذهد وحلول جيدا المذ مركو حيرين هل ما لكوها جدونا لبقى يبض أكل صار قارو حير هذين وأن عادي أسد أذوك أنا وكل أسك عادي نورمال أو سكسوم ما صلاة وناكسن لكن هل هبين جذهد إله أي أو كبدر دونا وحكادك دونا نين أهل التقوى عبسية مركو أمضى أيو جعل سيدونا marka ummadii ayaa jeclaa doonto saas hoggaanku uu ku qabad doona marka qaarna waxay yiraahdeen uu yahay nin caadi ah hal maal ilaahay hoggaanka mas xukunka mas maamulka iyo talada uu dhiibi doona macnaha nin caadi ah oo adoo kala anoo kala soomay salaadayo balse hal maal gudaheeda ilaahay ka dhigi doona nin hal khayr ah waa wanaagsan oo si wanaagsan khayrka qalbigiisa ku abuuray cabsi uu gelinayo hoggaanka talada islaamkana qabad doono saas oo noqon doona معناها إن هل هبين جوده لو بدل الدور الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معنى إله وحواي حالكيس هدوح أبعض وله نقو هروكان نقنا مركب مهدي قرطو صبح دون ولا جرد دونه قرطيه ومضى إليه دونان الله إن كان واسق سلمة رضي الله عنها وحيتري رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري وحاد مدونه بقر كاس مركو دنتنا waxaa dhici doona khilaafkaas oo dagaal doono oo isku dagaal doono yaa dhaxalka qabanayo dadka dagaal doona waa reerkiisa macnaha waa reer boqorka kuwaas oo isku dagaal doono dhaxal qabashada mise qofka noqon doona boqorka halkaas markuu ka dhac dagaal almahdi uu carraya wuxuu ka soo carraya madiina wuxuu imaanaya makka markuu imaada makka wuxuu galaya baytullah alxaraam macnaha kacbado galaya soo raasanayo meel uu ku badbaado dadkii ayaa imaanaya way garanayaan inuu yahay ninkii wanaagsanaa markaas baryaan tuugayaan dhahayaan adiga way ninka raadinaynay khilaafkan wuu weynaaday hoggaanka noo qabo calaamad ugu weyn oo lagu garan doono mahdi inuu yahay waxa waaye ciidamo oo la soo diray inay mahdi dilaan mise ninkan oo muslimiinta ka dhigtay calaamad saaray hogaamiyaha ka dhigay inay dilaan markay soo marayaan meel magac la yiraahdo albayda u dhaxayso madiina iyo makka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dhulka la jari doono markaas ayuu khabarkooda iyo warkooda adduunka noo qabsan doona markaas la ogaa doona ninkan inuu yahay ninkii almahdiga ah oo saxda ahaa markaas marka loo soo carar doona sidii qof walba u baayaco nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadaa maqashaan mahdi inuu hoggaanka qabtay wuxuu yiri u imaada baayaca hatta idinko baraf ku gurguurnayo mahdi markaas oo qaban doona hoggaanka muslimiinta isku keenay doona muslimiintu waxay dagaalmi doonaan wixii xumaa waxay dagaalmi doonaan jabahadihii adduunka dulmiga ku hayay سعودان أدنكنا حرية دونان سعودان وحواي مركي مريان ملك مدة ودنك سوريا دمشق مساجد أعانة ونبيجين أو شيء مساجد كأيو جوجو أي أو حال جاري حل صلاة مركي للجار ولا قمة يا مركي الأقيمو نين كان أسه جانك إسلام كهاي مجال داس ومهدي أو جوجو وأقيمكو كدعي أي منارة مساجد كاس كسوكر دجنا أيو نبي عيسى عليه السلام أسوق دجن وسانو هايستو لو ملاك بالشوا وسوق دونا مساجدك مركو سوق المساجدك مهدي أيا أركايو وحوليه هي نتجي النبي عيسى عليه السلام يا وحوليه ما صلاة أديك على الجو أقيمي أديك نتجي سلاسة محل وليه النبي عيسى عليه السلام حكون نقضي سو النبي هذا حكون نقضي سحابي محايا وحولته كذي وكمد نقضي ومدينه محمد دتك تكناي مركا المهدي ولد قال مدونا وحي حماء ورمدونا هل كاسنا يا لو آسدونا مركو كان كانوا حسيق قبضونه النبي عيسى عليه السلام وسعودنا دل دون مسيح الدجال يجروب كيسا المهدي وحوله كشرف يا إنه نقضوا من النبي حتى إمام نقضي مركا هل كاسنا وحوجان كقبضونه النبي عيسى عليه السلام ولد قال مدونه الدجال كمسيح الدجال كي يعبر الدجال كي جروب كيسا إيو منظمة ديسا هل كاسنا كدير دونا مركا المهدي هل كاسنا كل مدونا وأنا العاصر دونا هل كاسنا حكونا ما تي قصدي المهدي كدبنا أدونك وحقبض دون هجان كيسا نبي عيسى عليه السلام أوصي وضد دون كفاح يو أدونك الله وكذا ما دونه مركز تاسن وحيشة كذي المهدي المنتظر عيسى وياهي محمد ابن عبد الله تاسن مركز وحواي شكذا شكل مدة هذا أبهنتين أجعشهن فضلا شكذا كل صوص عتان وقدون تشكلوا معانا دنا أتكهشوا إلى صعود فقالوا ربنا Audio Jungle.